iyada oo lagu wado in maalinta bariya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka dhacdo doorashada mid ka mid ah kuraasta ka bannaan golaha shacabka oo uu ka baxay marxuum Cabbaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo raantii bishii May 2017 lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo doorashadan qabanaya waxa ay shahaadooyinkii murashaxnimo guddoonsiiyeen laba murashax oo kursigan bari ku tartamaya. labada musharax ayaa midkood ay haweeney tahay kan kalena waxa uu la dhashay marxuumkii booska baneeyay Cabbaas Cabdullaahi Siraaji iyadoo sidoo kalena guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay maanta soo gabagabeeyeen tababar la siinayay ergada oo ku saabsanaa qaabka ay u codeynayaan iyo diyaarinta kaararka ay ergada ku codeynayaan iyo kuwa goobjoogayaasha iyo murashaxiinta ay howlka ku galayaan. haddaba gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari ayaa ka warbixisay shahaadooyinka maanta ay bixiyeen iyo sida doorashada bari ay u qabsoomayso. maanta marka waxaan soo gaarnay oon howlka aan codka ku bixin lahayn aan dhex joogno waxaan soo gaarnay inaan bixino shahaadadii musharaxiinta. waxaa noo jooga laba musharax, Fardowsa Xuseen Maxamed oo ah musharaxa kursigan golaha shacbiga u bannaan oo u tartamaysa inay buuxiso. Fardowsa waxay soo buuxiso shuruudihii oo dhan, ha noqoto waxyaabihii laga rabay inay keento iyo ha noqoto siday u soo gudbisay waqtigii loo qabtay. waxaa kaloo ku xiga oo musharaxa labaad ah oo haddii Ilaahay idmo u fasaxan yahay inuu berri u tartamo Maxamed Cabdullaahi Siraaji. Siciid Xaashi Warsame oo ka tirsan xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee ku howlan doorashadan bari ka dhacaysa Kismaayo ayaa sheegay in doorashada ay guddigu u qaban doonaan si cadaalad ah. guddigu muxuu ahaa mar walba wuxuu u taagan yahay ummadda Soomaaliyeed oo u qaaday xilka inuu u garsooro cadaaladna u suubiyo laga bilaabo muxuu ahaa bixinta applicationada iyo qabashadooda ilaa ay heerkan ay soo gaaraan. waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa inay si wanaagsan ay muxuu ahaa u dhamaato doorashada tan. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose.